guddida guud ee shirkii gar adag ee beelaha bariga burco bariga gobolka saaxil galbeedka sanaag iyo weliba gobolka saraar oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gurigooda magaalada burco ayaa baaq adag ka soo saaray joojiyeyna hadallada ay maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta isu marinayeen xubno ka mida beeshaasi shirkan ay qabteen xubno uu horkacayay guddoomiye ku-xigeenka guddida gar adag cismaan xirsi jaamac xoghayaha guddidaasi kayse jiinje iyo xubnaha guddidaasi ayaa isku raacay in la joojiyo hadallada laysku marinayo warbaahinta isla markaana waxyeelaya midnimada beesha waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya guddidu guddoomiye ku-xigeenkii guddida habar jeclo iyo guddidii guud ayaa joogta ayaan ku hadlaynaa maanta shir jaraa'id oo aanu ku qabanay gurigan baaq baanu u diraynaa habar jeclo guud baanu u diraynaa annagoo ah guddidii guud waxaanu leenahay habar jeclo waxay leedahay dhaqan bay leedahay asluub iyo maamul bay leedahay waa reer ballaadhan guri baa looga taliyaa guddi bay leedahay beesheenna iyo reerkeenna midnaba ma aha ninka daba hadlay dhaqankaana ma lihin waxaanu baaq u diraynaa ballaadhanoo guud in la joojiyo iska daba hadalka iyo arrinta reerka shirka habar jeclo iyo arrinta reerka waxay leedahay cid kasta waa looga baahan yahay waynu isugu iman doonaa nin kastaa wuu ka qayb geli doonaa xilligeeda iyo wakhtigeeday noqon doontaa maandhaydkaana annagaa haysana qolada maxay ahayd toy siyaasiyiinta iyo maxay ahayd toy dhaqanka iyo cid kasta xaq bay u leedahay inay qaybteeda qaadato xaq bay u leedahay cid kasta oo dibindaabiyeynaysa ama habar jeclo burburinaysa ama iska daba hadlaysana ma ogolin dhaqan inooma aha wax wanaagsan maaha reerku hoggaan buu leeyahay taluu leeyahay dhaqan uma laha in la iska daba hadlo iyo in la yooyootamo midna dhaqan reerku uma laha waxaanu leenahay arrinkaa ha la joojiyo cid kasta oo ku hawlan waxaanu ugu baaqaynaa inay joojiso oo yooyootankaa cid dambe oo telefishinada ka hadasha beesheennana ma aha bahdeennana ma aha masiirka habar jeclo waa la wada leeyahay marka habar jeclo tala gaadhaysa waa laysugu imanayaa gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa waxaan kale oo raalligelin ka bixinaya iyo boolojiis hadal ka soo yeedhay cuqaashii hadashay caaqil ka mida oo ahaa burca waa nabada ceelaf weyn bay colaadi ka jirtaa waxaan leeyahay habar jeclo waa isku mid meel kastoo ay degto habar jeclo dhul ma kala laha xubin weeye xubintaa haddii meel ka mida xanuunto kulligeed way wada xanuunsanaysaa waxaan leenahay raggaa horena waa u cudur daaraynaa cid dambena kama ogolin inay habar jeclo ka yooyootanto waxaanu jecellahay habar jeclo waa mid inay middaa ahaato saxaafad dambe oo la qabto oo layskaga jawaabaana ayna jirin ciddii doonaysa in ay hadashana ay guddida guud iyo guriga guud ay ku soo sinto waxaanu leenahay oo shirkan aanu maanta u qabannay reerku karaamuu leeyahay karaamadiisa waa in la ilaaliyaa reerku karaamuu leeyahay miidiyaa laga wada hadlaya waa karaama ka qaad reerka karaamadiisa ha la ilaasho suldaan ahaan siyaasad ahaan qabiil ahaan codkar ahaan ummad ahaan waa in reerka la ilaaliyaa karaamadiisa waxaanu leenahay xigaalow waa in layskugu yimaadaa wax kastoo la kala tabanayaaba talo waxaa shir u qaban kara beelweynta habar jeclo meel kastay joogtaba guddiga suldaanka guud oo wata guddiga guud ee beelaha habar jeclo iyo garabadiisa kale u idmado hadday tahay madax dhaqameedka cuqaasha hadday tahay salaadiinta hadday tahay aqoon-yahanka hadday tahay gurbajoogga guddiduna maanta daw bay u leedahay inay tidhaahdo hadalka caddayso oo iyaga oo haddii eebba xugmaayo ka fekeraya habar jeclo inaanay qaybsamin inay taladu halkay ku xidhan tahay ka hadlaan xaq bay u leeyihiin xaqna ay u leeyihiin suldaanka guud iyo guddida guud oo isgarabsanaya cid kale oo soo farageliso oo meeshaa ka hadasho oo aan intaa ka haysan maandaytna aanay saa wadin intaasaan kaga baxay waxaanu leenahay waxa maandaytka iyo talada reerka iyo qaabkeedaba
guddida guud ee habar jeclo iyo suldaanka guud baa leh iyo ilaahay oo la kaashadaan arrintaa waxaan leenahay shirdacoodada ama dee TV-ga laga hadlayo in la joojo la fahmo reerku inuu leeyahay hoggaan leeyahay mahad cali goodir Star TV Burco.